dugsiga ammaana qur'aan online oo ay wax ka dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaaraynayaan in sanad dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida isla markaana ubadka la barayo barashada qur-aanka kariimka ah asaasiyaadka cilmiga shareecada islaamka haddaba waalid ubadkaaga uga faa'iidee fursaddan qaaliga qudhaaduna ka faa'iidayso dugsiga ammaana qur'aan online faahfaahin dheer iyo kala xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda ballanteenuna waa ammaana qur'aan online asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan waa kii ugu horreeyey maantoo isniina barnaamijyada aan idiin soo gudbinayno taariikhduna ay tahay 8 bisha luulyo sanadka 2024 haddaba qodobo muhiima ayaa barnaamijkeennan ugu horreeya aan idinkugu soo gudbin doonaa iiraan oo si adag ugu hanjabtay israa'iil haddaba maxay tiri maxaa la isku qabtay xaggee la iska hayaa haddaba sheeko aada u xiiso badan oo ku saabsan iiraan oo hanjabaadeedii ugu cuslayd muddooyinkan u dirtay israa'iil iyo israa'iil oo baqdin ay ka qabto arrintaas wasiirkeeda gaashaandhigga u dirtay washington si uu uga qayb galo shirka neto uga furmaya talaadada halkaas isagoo kala hadli doona madaxda neto sidii israa'iil looga celin lahaa iiraan haddaba war xasaasi ah oo ku saabsan arrintan iyo iiraan waxa ay ku hanjabayso ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu haynaa warbaahinta waxaa qabsaday gaar ahaan baraha bulshada sheeko cajiiba oo laga soo qaatay hadalkii shalay uu jeediyey abuu cubayda wuxuu yidhi abuu cubayda waxaan qorannay askar kuwo kalena waxay doonayaan inay askar noqdaan laakiin waan iska celinay mar kale ayaan idin askarayn doonaa ood nagu soo biiri doontaan ayaan ku niri bilcagsi halka israa'iil wax ciidan qoranaya iska daaya wax raba xataa aanay jirin oo la kala cararayo haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya in halkan askarta la bariyo halkanna askarta laga cararo haddaba waxyaabihii laga qoray sheekadan cajiibka badan ayaan iyana barnaamijka idinkula wadaagi doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey gaza xaaladdu halka ay marayso warbixinno ay soo kala saareen saraaya alqudus iyo alqasaam haddaba qodobadaasi iyo wixii warar ee soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idinla wadaagi doonaa safaari rimid waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibadaa ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah kenya soomaaliya uganda jabuuti etoobiya suudaan south suudaan tanzaniya iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada london in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada london halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kuugu bishaaraynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahinta boqolaanta kuugu dhow ee IBS bangi kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalay maanta oo isniina barnaamijkanna waa kii ugu horreeyey aan idiin soo gudbinayo haddaba barnaamijka waxaa noo soo socda qodobo aada u xiiso badan oo ay ku jiraan iiraan oo hanjabaadii ugu cuslayd u dirtay israa'iil iyo israa'iil oo meel ay joogsatala baqdin darteed haddaba sida ay wax u jiraan iyo wixii laga qoray sheekada xiisaha leh barnaamijkan idinkugu hayaa laakiin marka ugu horreysa waxaan ku bilaabaynaa
sida aad la socotaan shalay waxaa hadal jeediyey afhayeenka kataa'ibul qasaam abu cubayda wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah. haddaba qodobka muhiimka ah ee aanu rabno inaynu barnaamijkan ku qaadano ayaa wuxuu yahay, wuxuu sheegay waxaynu qorannay kumanaan ciidan oo cusub ayaan qorannay, kuwo kalena iyagoo diyaar ah inay nagu soo biiraan rabaa ayaan annaga iska celinay. waxaan ku nidhi hadda ma aha noo jooga, mar kalaan idin qoraynaa. macnaha sida ay dadku u rabaan inay ku biiraan kooxdooda muqaawamada ay ka mid noqdaan. dadkanu dee waa la silciyey, nin reerkiisii la laayay, waalidkiisii la laayay, carruurtiisii la laayay. marka dambe wuxuu isleeyahay adigana waa lagu dili doonaa, qarax ku dhimo ama diyaarad ha ku duqaysay waa tegi doontaa, laakiin waxaad tagtaa adoo dagaal ku jira dhimo intii adoo meel iska fadhiya aad dhiman lahayd. way qoranayaan marka, war aniga ha laygu daro, waa aniga alqasaamaan rabaa, war aniga alyaasiinka halii dhiibo, war maya, war joogaa la leeyay. sawirkan marka halkan ku dhegan ayaa warbaahinta saas loo wiifinayaa. israa'iiliyiintii oo cararaya iyo nimankii xamaas ahaa oo maaragtay askarnimadii raba oo inay alqasaam ku biiraan raba shacabkii falastiin. markaasaa marka aljaziira warbixin ka qortay maanta, waxay tiri waxaa qabsaday baraha bulshada oo dhan, meel kastoo ay dadku ku xiriiraan qodobka ku saabsan waxaa la keenayaa nimankii xerowdiimeedka ahaa. xerowdiimeed waa garanaysaan, nimankii xerowdiimeedka yahuudda ahaa oo leh annaga askar ma rabnooy cararayo, oo laleeyahay askartii yaa qoranaya yahuudda oo qof qoranaysa aanay jirin, dowladdii oo qaylinaysa, abaanduulihii oo le ciidana loo baahan yahay, wasiirkii gaashaandhigga ciidan, wax ciidan raba male, waa la kala cararaa halkaas. halkaanna dadku waxay leeyihiin meel la kala joogsada male, askar yaa raba haddii la yidhaha diyaar waayo, kumanaanaa la celcelinayaa laleeyahay jooga, kumanaan kalena haddaa lagu soo daray alqasaam. marka waxay leeyihiin aljaziira waxay leedahay halkaas marka waxaa ka muuqanaya farqiga waxa meesha ka jira, saaxada dagaalka, meesha dagaalku ka socdo waxa ka jira. qolana waxay rabaan inay halkaa ku dhintaan iyagoo dagaalamaya, inay shahaado qaataan oo shahiid noqdaanay rabaan. qolana dagaal ma rabaan ee way ka cararayaan halkaas. markaasaa baraha bulshada waxaa leeyahay kuwana waa cararayaan, waa lasoo qasbayaa, dagaal ma rabaan, wax qoranaa ciidan ma leh, kuwana meelay kala geeyaanay laayiin. markaa waxaa leeyahay yaa guulaysanaa marka, way iska cadday leeyihin. marka dadku waxay leeyihiin ninka dhulkiisa difaacanaya ee inuu u dhintan rabaa ayaa guulaysanaya marka ugu dambaysa leeyahay, waqtigay rabtaa qaadato. haddaba marka aljaziira warbixin cajiiba arrintaa ka diyaarisay, isla sawirkan meelaha wareegayana soo qaadatay. waxay leedahay dadka wax ku qora baraha bulshada waxay isbarbar dhigayaan muqaawamada falastiiniyiinta oo kumanaan dagaalyahan ah qoratay iyo askarta israa'iil oo laga cararayo. xataa kuwii askarta ahaa fasax hadday qaataan ma soo noqonayaan, iska dhaaf kuwo kale cusub inay yimaadaan. haddaba dadka wax ku qora baraha bulshada ayay leedahay jaziira waxay soo qaadanayaan kelimad uu shalay jeediyey afhayeenka militariga kataa'ibul qasaam abu cubayda, kaasoo markaa uu kaga hadlayay maalintii 275 ee dagaalka duufaan al aqsa oo socda, kaasoo bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore, in markaa uu kaga hadlay in askar fara badan ay qorteen, kuwo kalena ay yidhaahdeen annagaa idin soo wici doona. u fiirsada, muqaaranaa lagu samaynayaa, isbarbardhig. maalin hore waxaan idiin sheegay barnaamijyadeyda ku jiray inaad la socoteen aan filayaa, qaar ka mid a askartii israa'iil oo fasax aaday ayaa diiday inay soo laabtaan, soo noqonaynay dheheen, meeshaas ma rabno. iska dhaaf yaa kuwa cusub in la qoro, iska dhaaf kuwii xataa tegay ma soo noqonayaan, dagaal ma la rabo xagga. marka niyad ahaan sidee taa la leeyahay, marka quluubta nimankaa dagaalamaya, nin dagaalka raba, inuu ku dhinta raba, inuu shahiido raba, inuu dagaalamo, waddankiisa difaaca, dadkiisa difaacda raba,
inuu aargoosta rabaa dhibka loo geystay dadkiisa iyo ehelkiisa, iyo nin aan dagaal rabin say u wada diriri karaan alleeya. marka wadna ay ku wada diriraan meesha ma yaallo. marka sheekadaasu waa sheekada hadda haysata jaziirana ay qortay baraha bulshada, isbarbardhig halkaasa oo la samaynayo. sheekada iiraan iyo israa'iil oo meel xun maraysa way noo soo socotaa, laakiin marka hore waxaan ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dagaalada ka soconaya Gaza. maxaa soo kordhay? sidii caadada ahayd dagaalku wuu socdaa, hadday tahay Shujaaciya, hadday tahay Rafax, hadday tahay xaafadaha kale. israa'iil iyaduna duqayntu way wadaa, dadkii rayidka ah inay qaxaan iyaguna way socotaa. meeshaas marka dhibaatadaasaa ka taagan. dagaalkii waa socdaa, wadahadalladiina loo ballansanaa maanta waa la aaday. israa'iil hadda warbaahinteeda qaar ka mida waxay qorayaan, waxay leeyihiin wafdigii israa'iil oo hogaaminayo madaxa sirdoonka Mossad Masaray aadeen si markaa wadahadalladii iyo howlihii ay usii ambaqaadaan. hawshaas iyaduna halkaasay ka socotaa. halkanna nagtaa laysku hayaa. meeshan wadahadal iyo waxa kan iyo lama qoro. muqaawamo niman la yidhaahdo iyo nimankan meesha galay ayaa iyaguna iska raacaya. haddaba marka wararkii ugu dambeeyey Gaza waxaa la leeyahay Saraaya al-Qudus war ayay soo saartay. waxay tiri waxaynu qarxinay 2 ka mid ah aaliyaadka ama baabuurta gaashaaman ee ciidanka Israa'iil ay wateen deegaanka la yiraahdo Tel al-Hawa. haddaba Saraaya al-Qudus ayaa baahisay inay qarax u samaysay oo ay qarxisay 2 ka mid ah aaliyaadka, waxaana ay sheegeen inay u dhigeen miinooyin kuwa dhulka lagu xabaalo ah oo markaa dhulka ay ugu aaseen. waxaana la sheegay in weerarkaas uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Tel al-Hawa. waxayna sheegeen 2daas baabuur inay qarxiyeen saacadihii lasoo dhaafay. dabcan wixii ku jirayna waa tageen. al-Qassam ayaa iyaduna war soo saartay goordhow. waxay tiri waxaynu bartilmaameedsanay ciidamada gumaystaha ee ku sugan deegaanka la yiraahdo Netsarim. Kataa'ibul Qassam waxay sheegtay inay bartilmaameedsadeen ciidanka gumaystaha sida ay yiraahdeen deegaanka la yiraahdo Netsarim. waxaana ku garaacnay yiraahdeen sawaariiqda ridada gaaban oo markaa cabirkoodu yahay 114 mm. isla qodobkan waa kii shalay uu Abu Ubayda isna ka hadlay uu lahaa Netsarim. meesha waxa la Netsarim waxay ku taalaa meesha kala qaybisa oo hadda saldhigga ay ka samaysteen koonfurta iyo waqooyiga oo ay leeyihiin ma ka baxayno, hataa heshiis hadduu dhaco halkaa inaan ka baxno ma rabno. haddii kale nimankii muqaawamada ayaa isu soconaya, si fudud isugu soconayaan, saa waa ay aaminsan yihiin. marka meeshaas wuxuu yidhi waa laga jiidi doonaa. iyagoo inay baxaan way diideen, waa laga jiidaa, meydkoodaa laga jiidaa meeshuu dhahayo waayo. marka isla maantaba way ku socotaa, waa ujeedaan nagtaa laga geliyay. marka madaafiicdan maalmahan waxay la soo baxeen 114 mm la leeyahay oo ridada gaaban ah. marka wuuna ka xoog badan yahay hoobiyaha, waana madfac isaguna la qaadqaadi karo, nagta ka gelinayo. waa midka ay ka qayliyeen muddadii ugu dambeysay. marka halkaasa iyaduna xaaja maraysaa oo xaaladdu ay maraysaa. waayahay halkaasaan kaga gudbaynaa marka qodobkaas isaguna. qodobka ugu dambeeya barnaamijkayga ugu horeeya maanta oo isniina waxaan idinkugu hayaa sheeko aada u xiiso badan. barnaamijkaygii 3aad ee xalay waxaan idinkula socodsiiyey wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil inuu aaday Washington. talaadada waxaa ka furmaya berito shirka NATO madaxdeeda. sanad guuradii 75aad ayaa halkaa looga dabaaldegi doonaa. Israa'iil marka NATO kuma jirto. NATO haddaysan ku jirin maxay ka doonaysaa? xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ayaa war soo saaray. Israa'iil wuxuu yidhi wuxuu la kulmi doonaa madaxdaas, wuxuu kala hadli doonaa cabsida weyn ee Israa'iil ay ka qabto Iiraan. warkaalaya Iiraan naga dhiciya waayo. u fiirsada meesha hadal weyn ku jira. NATO u tagay macalinka weyn iyo xertiisa u badan halkaas waxay ku dhahaysaa Iiraan naga dhici. sidee wax u jiraan marka? Iiraan maxay samaysay? maxayse uga baqaysaa Iiraan?
haddaba iiraana war soo saartay marka maanta. haddaba telefishinka aljaziira ayaa wuxuu qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxaa la sheegay in iiraan ay taageeri doonto oo markaa ay qayb weyn ka qaadan doonto weerar kasta oo gardarro ah oo israa'iil xaggeeda kaga yimaada inay iska difaacdo. haddaba waxaa la sheegayaa, warbixintu way sii socotaa, la leeyahay lubnaan haddii lasoo weeraro dhulkeeda iyo dadkeeda oo amnigeeda khatar la geliyo, waxay iiraan diyaar u tahay inay wax allaalay wixii awooda ay haysato ay lubnaan ku difaaci doonto. haddaba fariintaas waxaa hawada loo mariyey israa'iil, waxaana loo sheegay inay qaadi doonto cawaaqibka ka dhasha weerar ay ku qaado lubnaan. waxaana loo sheegay in ay ku xisaabtanto haddii lubnaan ay si weyn weerar weyn ku qaado oo meesha hadda dagaalku ka socdo meelaan ahayn ay weerarto oo dagaal weyn ay ku qaado, in iiraan iyaduna aysan gacmaha laaban doonin. wadaadkii aayatullaahi khamenei netanyahu wuxuu leeyahy, netanyahu yow haddaa halkaas isku aado oo maalinkay kuu dhammaan lahayd. shacabka iiraan iyo shacabka lubnaan waa isku mid ay leedahay iiraan. horaa idinkugu sheegay xisbullah awlaada waaweynay ku jirtaa, curadkii waaye. xisbullah iyo maaragtay xuuti iyo curadki iyo curad ku-xigeenki iyo waayo. haddii sheekadu marka ku xumaato iiraan si aan shaki lahayn ayay madax u gelaysaa. hawshaasu marka halkaas aaday uga qasan tahay, halkaasay marka wax marayaan. marka wadaadka aayatullaahina wuxuu leeyahay haddii halkaa meelaha hadda laysku tuurtuuriyeeyaa, inta badan ma soo qaato aniga, sababtoo ah xaafadaas ma dhaafto baash xuduudda. waxaa maqle xisbullah halkaanay ku dhufatay, israa'iil aad jawaabta halkaanay ku dhufatay. marka meeshaas xoogaa garoonkaasay ku ciyaaraan, garoonka marka meeshaas iyaga u calaamadays. laakiin baasha hadday garoonka kasoo gudubto oo weerarka ay sheegayso israa'iil oo weyn ay ku qaado lubnaan taageero aan cidna aanan siinaynaa tiri iiraan. marka iiraan yaa ka horreeyey, turkiyaa ka horreeyey, waa idiin sheegay. turki isaguna muxuu leeyahay waa difaacaynaa lubnaan haddii weerar lagu soo qaado, waa caawinaynaa, hubaa siinaynaa, wax kastaa siinaynaa. ma ka ogolaanayno netanyahu inuu haddana lubnaan qarramsado. awlu soo baabi'iyey gaza iyo dhulkan, haddana lubnaana ku darsana kama yeelin. hanjabaadahaas marka waa isdaba joog, fariimo loo marinayo netanyahu hawada waayo. netanyahu laftirkiisa wuu dareensan yahay, dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin wuu dareensan yahay laftirkiisa cawaaqibka kaga iman kara lubnaan oo uu weeraro. iskaba dhaaf turkiya iiraan, xisbullah yaabaa nagta ka gelinaysaa leey. gantaalaha ay haysato xisbullah, horey iiraan u sheegtay, waxay tiri xisbullahi iyo israa'iil hadday isfara saaraan annaga xisbullahi waa ku kalsoonahay. hubka ay haysato macnaha ay iskaga dhicin karto. marka meesha halkaasay maraysaa, hanjabaadahaas hawada la isu marinaa. israa'iil markiiba waa carartay. wasiirka gaashaandhigga waxay u dirtay muxuu ahaa shirka neto. laakiin dadka khubarada qaar waxay leeyihiin shirka neto wuxuu u tegay kow inuu taageero helo, neto inay taageerto israa'iil dhibaatadan iyo xasuuqan ay ka geysanayso gaza, inay taageero neto uga hesho. midda labaad in ay israa'iil rabto inay weerar ku qaado xisbullah iyo waxa kan, iiraanna in laga celiyo oo maaragtay wadamada neto oo dhan ay dagaalka ay geliso, iiraan iyo neto inay ka dhigto. marka laakiin waxaan leeyahay sidee suuragal ku noqonay? dowlado neto ku jiro waxaa jira israa'iil aan arki karin oo aan la tusi karin dhibaatooyinka ay geysteen kasoo horjeeda, oo leh waxaasu ma shaqaynayaan. dowlado aqoonsadayaa ku jira muxuu ahaa falastiin oo
oo maaragtay israa'iil yiri waa qaldanta marka sheekadaasu marka adduunkaa saasaa layskaga daba wareejinaya haddaba wararkii ugu dambeeyay hadda soo dhacay waxay sheegayaan ciidamada israa'iil waxay sheegeen 23 ka tirsan askartooda inay ku dhaawacmeen weeraradii lasoo dhaafay iyadoo 17 ka mid ah ay ku dhaawacmeen dagaalka ka socda Gaza inta kalena ma aysan sheegin laakiin waxa la leeyahay dagaalada kale ee dhinaca Xisbullah ayay ku dhaawacmeen waa 24 saac ee lasoo dhaafay ayay hadda soo qoreen oo sheeganayaan barnaamijkeygii ugu horeeyay maanta isniina inta ayaan kusoo gabagabeynaya haddii alla idmo barnaamijyo kale ayaa noo soo socda barnaamijka fakar iyo aragti noogu soo qora qaybta commenteska like gareeya oo share gareeya haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-kana follow gareey haddaba barnaamijyada inta aan daawan waxay kala socon karaan mar walba Facebook-keena iyo YouTube-keena inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo